magacay meel arey Usmaan Nuur Aadan iyada ka faraxsan kamid nagashada baarlamaanka dadaal badan hangali in aan kamid nagada Ilaahay in rumay ku guuleystay waxa igu soo tagashay waxa igu caabiyay odayaal dhaqameedka sidoo kale madaxweynaha Cabdicasiis Lafta Gareen magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Cabdiraxmaan aad ugu faraxsanahay in aan ku soo biiro golaha shacabka waxaan rajaynayaa inaan sameeyo isbedel dhalinyarada la hormariyo ma in suurtagalay dhammaan bulshada ana jeediya dhiirigelin iseen in issharaxa tartama kursigun oo xildhibaannimada anana ogolaadi dhiirigelintaasay garaba inagati madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna garaba isi saasan kamid naqday madkeer maaliyadan uriyeen leere wali in suurtagalay markan ku horeeyay baarlamaanka ay maaskunadana laakiin systemka dawladeed iyo dhinku hayay ku jiray muddadii dambe waliba hayeen gudoomiyaha xafiidaha hay muddo 3 sano iyo 5 bilood kadib wali dhiiday in horsood ama wadanka manaha in ku qayb qaadashiisuna iska dayna waliba in suurtagalay marka inayna campaign galna oo inay marna in xildhibaanada ku qayb galna wali oo sameeyay baarlamaanka la qoyay dhalinyaro badan asaas daraadii marna isbedel dhabeys lan hela campaign meelaha ku bilawnay marka taas waliba lagu ku jawaabay codsigii xukuumadda bulshada oo dhalinyarada in lagu qayb galay baarlamaanka cusub deegaanka aan u dhaartay waxyaabo badan inaan ku soo kordhiyaan jeclahay insha Allah haday ahaan lahayd qaabka waxbarashada dhalinyarada oo aan waxbarashada hadda ka dib dhiceen dhalinyarada anaba dhalinyarahay waan ka shaqeeyay hadan may rajiday kuwiinta in dhalinyarada Koonfur Galbeed meel kastrooga hodheer iyo odgaaman horumarka si oo ka dhiirifadan ka shaqeey aan ku dadaalo sidii waxbarasho tayo leh loo heli lahaa waayo qofka doo wax barto wax badan culayskiisa uu ka dagaan aan u sameeyno shaqo abuuris aan u sameeyno kuwa waxbarashada aan haysaninna aan u sameeyno waxbarasho dadka badan ma iraan siyaasiyan ka hor roogto laakiin beenwataas may tusaale aha baarlamaanku geeg la xuliya tusaale marka qofka dareenka kiisha ka hirin caqabad hadda la taabado karo oo dhanka siyaasadda dadka oo nisbeeyaan ma jartaan taas aaminsan dhalinyarada waxa rajaynayaa inay ku soo wada biiraan siyaasadda afkaarta guud iyo meel raayisa wadanka isbedel shay inay qayb ku noqdaan taasna ma la doona inay wal ku bedelo doon soo ku rajeeyo caqabado ma lin gudub karo in dhalinyarada iska hirnaada mar hor iska hirnaan suubiya ka qayb qaadan siyaasadda iyo la shaqeyn dawladda wacyigelin aan sameeyno voluntary aan ku shaqeeyno si dawladdeena aan kor u qaadi lahayn dhalinyaro badan waxay iska jiraan agajugleen iyo wax loogu daraayo marka sidaas ay siyaasadda ugu gambanayaan dhalinyarada kuwa shacabka iyo kuwa dawladda ku jiro inay iskaashtaan waxa loo gudbi karaa in dhalinyarada isgacan qabsato wacyigelin loo sameeyo